ummadda muslimiinta ah ee ku nool caalamka ayaa sanad kasta waxa ay u dabaaldegaan maalmaha ciida gaar ahaan Ciidul Fitriga oo waqti kooban ka harsan yahay. dadka Soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol muslim ah ayaa dhameysanaya gudashada waajibaadka bisha fadliga iyo khayrka badan ee Ramadaan ayagoo haatan u diyaar garoobaya farxadda maalmaha ciida. waalidiinta Soomaaliyeed caruurtooda ayay ka farxiyaan maadaama ay u iibinayaan dhar bilicsan oo ay ku ciidaan iyo alaabaha ay ku ciyaaraan caruurta. suuqyada iyo moolalka magaalada Muqdisho ayaa laga dareemayaa ciriiri aad u badan sida goobaha dharka, alaabaha macmacaanka iyo wadooyinka suuqyada oo dhan, taasi oo muujinaysa diyaar garowga Ciidul Fitriga. suuqyada dhisan sida Muqdisho Mall ayaan booqday, halkaas oo aan kula kulmay xaalad dadka oo dhan ay ku faraxsan yihiin dukaamaysiga ay ku jiraan. Maxamed Aadan Cabdulle oo maamulo ka ah mid ka mid ah carwooyinka moolkan ayaa inoo sheegay waxa uu ka aaminsan yahay ciidan iyo sida ay uga duwan tahay kuwii hore. waxaan dadku u keenay alaabo kala duwan dharka sida ragga, caruurta yaryar ee ragga iyo qaybo kala duwan sida kabaha oo kale. runtii dadka waxaan soo dhaweynaa si aad wanaagsan si ay shopping u sameeyaan. waxaan ciidan u talgalnay runtii dadka inaan u soo iibino waxyaabo aad u qancaan anagoo wanaajinayno customerskeena. qaybta caruurta aad ay soo badinaa si caruurta Soomaaliyeed u ciidaan. qaybta oo waaweenkana kama marna ayagana wax soo darnaa oo macnaha ragga waaweenka iyo ragga yarba iyo dumarka waaween dumarka yarba inta baa keenna. waalidiinta qaar ayaa SNTV dareenkooda iyo dukaamaysiga ay ku mashquulsan yihiin xiliyadan oo kale uga waramay. magaalada jadwalkeeda maxay hay'ado noo saamaxayna xilligan imaano xoogaa magaalada ma sha Allah sida hore way ka duwan tahay oo aad bay u yar fiican tahay xagga amniga ma sha Allah. habeenkii awal maalinta dukaamaysan jirnay in badan laakiin hadda maalintii habeenkii waa ku darmeeshay. walaalay ciidan macnaha ciidan kale way noogu duwan tahay amnigan dareemeynaa in badan magaalada Muqdisho hadda anaga waa soo afurnay maanta dhan ma soo bixin hadda soo baxnay حل ضمبوا إلا 4 ساعة 5 ساعة ولا سؤال كرا وعادي الحمد لله نعمة إلهي كفر عسنا والله يا أباي إن بدنا نرتب مول كان أنا هذا معناه أقول ريا قوا ألعاب عن مجال كسوة ويا كسوة هلا مركز مركز أساسا أوي ما يعني إن بدنا نبدأ إن كان أوتو bar la eg magaalada in badan nooca oo magaalada ana alina moolka ka hela saasa macna aniga u imaad. Farduus Maxamed Cabdi ayaa bogaadisay in xilli habeen ah si nabadgelyo ah loo dukaamaysto tanina ay tahay fariin horumar iyo nabadeed. abay waxaan u imaanay inaan shopping ka sameysano iyo dharka ciida soo doonano inaan ilmahan u gadano annagana aan gadano maxaa yeelay maan bil barkeysana lagu jiro oo farxad sidaas darteed ayaa meeshaan u imaanay inaan ilmahan shopping u sameysano iyo dharna u gadano annagana sidoo kale aan sameeyno dhar aan gadano. ayaantan magaalada amni ayay noqotay moolkan oo kale hore ma furnaan jirin meelo casri ah ayaa la furay waxyaabo kala duwan awalba kaara kaliya ayaa laga shopping gareysan jiray balse hadda waxa imaatay in meelo kala duwan laga shopping gareysto. carwooyinkina sida hadda Muqdisho Mall oo kale taa habeenkii ilaa xilli dambe uu furan yahay taas ayaa keenaysa marka in habeenkii la socdo. sida aad arkaysaan daawadayaal kuwani waa moodaladii ugu dambeeyay ee sanadkan ay soo saareen ganacsatada Soomaaliyeed waxaana loogu talagalay inay ku ciidaan caruurta da'doodu u dhaxayso 12 sano ilaa 2 sano jir halka kuwa kale ee da'doodu ka weyn tahay loogu talagalay moodalo kale oo ay soo saareen ganacsatada Soomaaliyeed. Maayda Muxiidiin Diblaawe raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho.